shan qof oo ku jiro wasiirkii wasaaradda amniga Puntland ayaa ku dhaawacmay israsaaseen maanta ka dhacday magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari oo dhaxmartay ciidamo ka tirsan booliska Puntland. wararka ayaa waxay sheegayaan in ay timid israsaaseenta kadib muran soo kala dhaxgalay taliyaha ciidanka booliska Puntland General Cabdirasaaq Afguduuda iyo taliyaha ciidanka birmadka Puntland Cornel Cismaan Afdalow oo ka wada qayb galay shir ammaanka looga hadlayay oo ka dhacay magaalada Boosaaso. taliyaha qaybta booliska gobolka Bari Cabdixakiin Yuusuf Xuseen ayaa u sheegay warbaahinta in ay israsaaseentaasi ay ahayd ciidamo ka kala tirsan booliska iyo birmadka, waxaana uu sheegay taliyaha qaybta in ay u badnaayeen dhalinyaro. shaqadaas wax kale kuma saabsanayn, xoogaa ciidan iska horimaad yar baa dhacay oo ciidamada ka baxdina waxaa ku dhaawacmay dhowr qof, wasiirkii amniga iyo saraakiil iyo askar. hawshaasna waxa weeye hadda gacanta lagu halay oo la xalinaya, wax weyna maaha. horimaad yar oo ciidanku adaaba ciidan badan iyo istaafiya ay meesha isugu yimaadeen ayar hal xabo dhacday markaasi khayr mas'uulnimo ay u sii badatay magarat laba soo ciidan ay islaahay ma jirin, waxay ahaayeen ciidan istaafiya oo nimba ciidan nin watay iyo ayuu kala garan waayay meesha xabadu ka imaanayso. dhalinyaro yaryar bayna u badan yihiin oo go'aan qaadashadooda aad u yartahay magarat. marka sidaas ay u dhacday. hadda laba ciidan oo isweerartay ma jirin oo laba saf ma wax dhimasho ma jiraan, wax dhimasho ma jiraan. wasiirka amniga ay u fuudeeyo xabada bowdada ka dustay, wax cilado hadda jiraan ma jiraan. arrintan ayaa waxay imanaysaa iyadoo madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uu ku sugan yahay magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari, waxaana la filayay in madaxweynaha maalmaha soo socda uu u ambabaxo dalka Djibouti, halkaasi oo ka dhici doonto caleemasaarka madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele. xasan heykal, telefishinka caalamiga ee Somali Cable, Boosaaso.